gudoomiyaha gumeel gaarka ee golaha shacabka xildhibaanada sharafta leh musharaxiinta guddoonka golaha shacabka guddiga qabanqaabada doorashada guddoonka golaha shacabka saxaafadda iyo dhammaan dadweynaha nagala socda warbaahinta dalka iyo dibaddaba assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh mudane gudoomiye mudane aliyo marwooyin xildhibaanada sharafta iyo qadarinta mudane waxaa sharaf ii ah anigoo ah xildhibaan sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe inaan idinla wadaago inaan ahay musharaxa u taagan qabashada xilka guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda Soomaaliya sidoo kale waxaan hortiin u soo istaagay inaan idin weydiisto codkiina iyo kalsoonidiina iguna aamintaan mas-uuliyadda culus oo aan u qabanayo xildhibaanada sharafta leh ee dalkeena iyo dadkeena mudane gudoomiye mudane aliyo marwooyin haddaan idinla wadaago aan wax idinka taabto taariikh nololeedkayga iyo khibradayda shaqo aniga waxaan ku dhashay degmada xudur xarunta gobolka boqol 1956 bishii abriil da'daydu waa iska qiyaasi kartiin dadka da'da waa qarsadaan ma qarinahayo 65 sano waa dhameeyey khibradayda shaqo haddaan wax idinka taabto horta aqoontayda haddaan wax idinka bilaabo intaan maaragtay aan dhexgelin khibradayda aniga takhasuskaygu wuxuu yahay culuumta islaamka gaar ahaan shareecada islaamka iyo culuum diraasaadka islaamka aan ka sameeyey culuumtayda aniga waxay maaragtay ku saabsan tahay dhinaca shareecada islaamka iyo culuumta islaamka waxaa ila jira 30 sano ku dhowaad oo waayo aragnimo ah sharci kasta iyo xeer kasta dalka loo dejiyay aan goobjoog u ahaa aqoontayda markaan soo koobo dhinacaasay u badan tahay dhinaca waxbarashadayda waayo aragnimadayda shaqo mudane gudoomiye iyo mudane aadan xildhibaanada sharafta leh waxaan rabaa inaan idinlaga soo siiyo intaan aniga qaranka u soo shaqeeyey ama xil dawlad aan soo qabtay 1993 ilaa 1995 waxaan noqday gudoomiyaha degmada xudur 1996 laga soo bilaabo waxaan ka mid ahaa odayaashii waxgaradkii siyaasiyiintii ku mashquulsanayd sidii dalka Soomaaliyeed oo burbur xun soo gaaray loo heli lahaa dib u heshiisiin ummadda Soomaaliyeed isku soo celiyo iyo dawlad dalkeena meesha loo heli lahaa baan ka mid ahaa shirarka aan ka qayb galay waxaa ka mid ahaa shirkii Soodare oo dadkii la rabay qaarkood imaan waayeen oo dawladda ugu dhawaaqi waayeen oo urur la soo sameeyay in Soomaaliya la isu keeno lagu soo go'aansaday aan dawladda ugu dhoosin laakiin lagu go'aansaday in 4.5 wax lagu qaybsado shirkii ku xigay wuxuu ahaa kii Jabuuti shirkii Jabuuti adiga ma aadin saaxiibo aan isku tiim ahay oo la yaqaano waa ogtihiin ma idinka qarsoona aniga waxaan ku jiray markii Soomaalida kala burburtay oo iskasta deegaankeedii tagtay ururkii RRA baan ka mid ahaa mas'uuliyiintiisa marka saaxiibaday gudoomiye iga sareeyay iyo laba iga hooseysay ayuu dad kale badan Jabuuti ka qayb galay waxa lagu soo qoray xildhibaanamadii nasiib wanaag markii dambe duruufo jiri awgeed kama qayb galin xildhibaan ma noqon markaas waxaa iigu xigtay shirkii Nairobi lagu qabtay Eldoret iyo Embagaasi waxaan soo noqday anigoo dib u heshiisintii dadkii aad ugu dadaalay ka mid ahaa iyo dawlad dhiska wasiirka cadaaladda iyo garsoorka iyo xildhibaan ugu dambeyntii markii dambe aan dalka gudihii lagu soo noqday waxaa la ii doortay 31 January 2007 gudoomiyaha golaha shacabka xilkaasaan qabtay waxaa igu xigtay 27 December
2008 waxaan qabtay aan ku darsaday xilkii guddoomiyenimada si dastuuri ah markuu is-casilay allah u naxariista madaxweynaheeni hore marxuum cabdulaahi yuusuf xilkii uu baneeyay oo asiga iska casilay xilkii guddoomiyenimada lagu daray waxaan noqday guddoomiyaha golaha baarlamaanka ahna madaxweynaha siihayaha jamhuuriyadda Soomaaliya waxaa ilaahay nagu guuleeyay markaas inaan isugu tagnay oo Jabuuti dawladda ugu soo dhisay intaas kadib waxaan ahaa markii dawladda la dhisay uu ku guuleystay dawladdii Shariif Sheekh Axmed waxaan ahaa xildhibaan guddoomiyihii golaha shacabka waxaana lagu guuleystay oo ilaahay nagu manaystay inaan ku ceeboweyn markuu madaxweynaha is-casilay shaki waxa yimid ama dalkii burbura aniga oo runtii la kaashanayay xildhibaanadii sharafta lahaa baarlamaanka iyo dadweynaha Soomaaliyeed iyo waxgaradka waxaan ku hogaamiyay labadii tiimkii mucaaradka midowgii maxaakiimta iyo dawladda ku meel gaarka inaan isugu geyno Jabuuti walaalkeen Ismaaciil Umar Geele khayr Allah siiyo iyo dadkiisa dhammaan reer Jabuuti walaalaheen go'isha noo fidiyeen inaan ku midoowno dawlad ku soo dhisano ilaahay inuu soo guuleeyay xilkiina markaas ku wareejiyay madaxweynaha la doortay Shariif Sheekh Axmed waxaan hogaamintooda bilaaway 275 horay u jirtay ilaa 275 oo lagu daray oo hatta xeerka ay soo mareen xeer taageerayaasheeda isdileen hatta soo maray yaan waxaan isugu geynay hal hool waana midoobeen dawlad sharaf baarlamaan sharaf leh oo ummadii Soomaaliyeed metelo oo aan isdagaalin ay noqdeen ilaah baa nagu eebasuray saasa dalka uu soo noqonay markaa nimid meesha hadda lagu shiro xarunta golaha ummadda oo burbursan oo wixii dhinto baqti beelaad ku dhinto iyo lagu jiido oo mas'uul ahaan loo isticmaalo ayaan waxaan sameynay guddoomiyihii aniga oo guddoomiyihii baarlamaanka sideedad iyo xildhibaanadii waxaan sameynay inaan meeshii dhisno dayactirno nadiifino xildhibaanadii waa joogeen mid ilaa hadda lagu shiro ama ilaa hadda noo socdo waay isla markaas waxaan soo codsaday dawladda walaalaheen Turki yaan aaday waxaan ka codsaday in meesha la noo dhiso waan naga soo ogolaatay barnaamijkaas weli sidii la rabay looma fulinin rajigiisana ma xuma ilaa alaana inta ba iga noo dhisay wadugti taas xaaladaha kale aan ilaahay u makeenay ku soo guuleystay intaan xilka ahaa waxaa ka mid ah inaan shuruuc badan oo waqti cariiri duruufo jirta aan soo hirgelinay aan soo milmarinay oo tii aan afjarnay barmuqaadadii dawladeen lagu barmuqaamay oo la dhihi jiray waa almaaniyiin nama lagu barmuqaami jireen oo aan u fadhiisinay shariicada islaamka in dalka lagu dhawaan go'aaminay ka mid ah iyo qodob badan oo ogtihiin shaqaalaha rayidka ka mid ahaa tii badroolka ka mid ahaa tii ciidamada ka mid ahaa yani lama soo koobi karo xaqiiqda iyadoo duruuf adag jirto aan baarlamaanka kuna haysanin intaas kadib waxaan rabaa mudane guddoomiye mudane Ali Marweyne labaanada sharafta leh guulahaas lama soo koobi karo ilaah baa noo soo makaniyay maanta midaan lagu soo gaari waayo waxaan rabaa inaan idin sheego haddii ilaahay uu guuleeyo oo aad codkiina siisaan oo aad doorataan waxyaalaha aan damacsanahay waad ogtihiin xilka in lagula maago inaad codsatid waxa caadiyan badan in lagula maago laakiin waxaa jirta duruuf hadday jirto waxaa daliil u ah nabi yuusuf alayhi salaam wuxuu yidhi markii boqorkii maxadiyay oo la heshiiyey oo aniga ila shaqaynaysa uu yidhi dawladdiisa oo dhibaataysan wuxuu yidhi اجعلني على غزائن الارض اني عليم حفيظ ولا ليال waxaan idin leeyahay ilmaanada sharafta leh aniga inaan maanta u soo istaago waxaan isleeyahay duruufta maanta jirta inaan wax ka qaban karo waxyaalaha aan maaragtay soo istaagay ka mid tahay sababtoo ah baarlamaankeena ugu dambeeyay hadda duruufii jiriyaan ogahay marka arrimaha aan ku talagalkay waxaa ka mid ah sareynta sharciga iyo ku dhagankiisa waa qodob ii taagan si loo helo baarlamaan haybad leh shuruucdiisa madax bannaan u fulin karo si loo helo waxaa kale muhiimadda koowaad aan siin doonaa ilaalinta madax bannaanida golaha shacabka mudane Marweyne labaadana sharafta leh waxaad ogtihiin baarlamaankeeni tobanaad waa soo dadaalay laakiin xadgudbi aan caadi ahayn ayaa lagu sameeyay waxaad ogtihiin guddigeeni maaliyadda markii xisaabtan ay la galeen hay'adihii qaabilsanaad maaliyadda
guddigii in habeen madow la kala diray gudoomiyahooda cararay alaana dibadda ku magan yahay baad ogtihiin xaqiiqdii waxa baarlamaan looga adkaysan kara maaha in xildhibaanka codkiisa ama loo jujuubo ama loo handado oo dalka ugu cararo waxaan ogolaan darna maaha hadduu ilaahay yidhahdo aniga ilaahay iga guuleeyo mudanayaal iyo marweyn xildhibaanada sharafta leh waxaan kale haddii aad i doorataan codkiisa siisaan aan xoogga saari doonaa idinkoo idin kala tashanaayo horumarinta xiriirka golaha shacabka golaha aqalka sare iyo golayaasha dowlad goboleedyada ee xubnaha dowladda federaalka si aan u noqono dal degan oo isku wada xidhan u noqono hadduu ilaahay igu guuleeyo oo aad codkiina siisaan waxaan kale maaragtay aan xoogga saari doonaa hirgelinta dhismaha xarunta weyn ee golaha shacabka muddo kooban maadaama waqtigaas aan codsanay caalamkana diyaarno ahaa inuuna caawiyo la fulin waayo inaan fuliyo oo aan idinku hogaamiyo ayaan ku dadaali doonaa haddii aan leenno sidoo kale waxaan ku dadaali doonaa dhismaha guddiga adeega baarlamaanka oo weligii la dhisin si xuquuqda baarlamaanka meel loo saaro guddi madax bannaan oo waajibkiisa loo helo ayadoo guddiyadii kale caadiga ahaana sidooda loo dhisi doono oo ay guddigaasi noqon doonaan guddiyadaas guddiga howlaha baarlamaanka fuliya si dastuuri ah hay-adaha dastuuriga la xisaabtamo kor joogtayo waajibaadkiis guto asigoo cidna ka baqaynin asigan ujeedadiisa inay ku xadgudbo laakiin waajibaadkii loo idmaday fulinayo haddii aan leedno mudane gudoomiye mudane aliye marwooyin waxaan hadduu ilaahay yidhaahdo aan xoojin doonaa oo idinku hogaamin doonaa xiriirka baarlamaanada caalamka waxaad ogtihiin baarlamaanka sideedaad oo aan sheegahay oo dhaqaale qaadanaynin dhammaan baarlamaanada caalamka hubaan ka noqonay waagaasaa la dhisay iyo ilaahay nagu guuleeyey kulli waa jiraan baarlamaanada caalamka dhan xubinteen waa ka bannaan tahay taasna waa sii xoojin doonaa insha allah waxaan kala dhiirigeli doonaa hadduu ilaahay yidhaahdo aan codkiina isiisaan oo aan codkiina aad isiisaan waxaan kala dhiirigelin aan u samayn doonaa oo si maaragtay mug leh aan ugu dadaali doonaa wada xaajoodkii istaagay walaalaheena Soomaaliland si aan u gaarno xeer aan dastuurkeena afti u qaadi karno maadaama Soomaaliya ay muhiim ka maqan tahay dastuur qaadista aan lagu toosi karin si aan walaalaheena aan ugu qancino dhibaatooyinkii ay tirsanayeen si wada xaajood walaaltinimo aan ugu galno midnimo Soomaaliyeedna loo helo waxaan hoojin doonaa xukuumadda ku korjeegdan doonaa arintaasi xalaalnimo oo dabadaacnimo in wada xaajoodkaas loo furo wadabtum koobi tobanaad mudane yaale marweyn xildhibaanada sharafta leh haddaad doorataan waxaan hubinta iyo hagista hubin iyo hegis ku samayn doonaa doorasho axsaab ah oo si xor ah dadka loo doorto qofkii cod la gaarsiiyo dalka ayada oo maaragtay weliba tarakoob laga horumarin doono haddii aan la idno oo dalkeeni ammaankiis u sugno intaan hadda xilka haynin waxaan rajaynayaa in arrintaas ilaahay nagu guuleeyo mudane gudoomiye mudanayaasha sharafta leh waxaan aaminsanahay haddaad i doorataan codkiina isiisaan inaan isbeddel la taaban karo baarlamaanka Soomaaliyeed aan ka keeni doono oo aan heli doono kalsoonida shacabweynihiina soo doortay oo maanta yacni moraal xumo ku dhacday oo xeer iyo ka shakeen ama matalaadii waajibkana saarnaa in aanay ka gaabinay aaminsan inaan wax ka bedelno hadduu ilaahay yidhaahdo aad i doortaan qodobkaas xoogaan saari doonaa waxaan kale maaragtay hadduu ilaahay yidhaahdo aan u howlgali doonaa oo aan baarlamaanka federaalka ku hogaami doono haddaad i doorataan codkiisa siisaan maqaamka caasimadda Soomaaliya oo dhibaato badan ka taagan tahay oo muddo badanna sidii saa u taagnaayay waxaan rajaynayaa in ilaahay lagu golin doono aniguna dadaal aan aad ma ku bi doono haddii aan leedno insha allah xildhibaanada sharafta leh waxaa la yidhi
أنا ما بجتا أفمايا مركز ولا فضاء سمر ستوي مدي ولا كوف فضاء ولا يفصل مركز عليه واحد دون يسي حابسنين لكن مركز واحد لقاه دون أيو مركز لقاه بقينا عبسك ده حسوتي ما أنت أنيق وحى فرتين وتاجن هاي أنا إذا ويديسته عدكينا وحان إذا كبر لنقاضيا هدادي دورتان من نقول دونه هدو إلهي إلهي قدومي انتو اسكتاقو ماذا حدا كالا أسيق استيس وحورها أسيق من نقول دونه هدو إلهي إلهي وحان كالا بارمانكا كإلالين دونا وأنا أوهو القليدان أنا أقول بارمان ويناها قولها الشعبي أنا لكاشين دونه هلا بانا دهن إنا يكم مارمان إن أي شهاد ودونتان هي أتكالي وأي نقضان nolol isku dheelitiran inay helaan waxaan kale habdu ilaahay yiraahdo haddaad doortaan codkiina siisaan aan u howlgali doonaa baarlamaanka mahad in loo sameeyo oo aqoon kororsi ah xubnaha baarlamaanka iyo howlwadeennada baarlamaanka dhammaantood aqoon kororsi maaragtay duruus joogta u noqoto yaan samayn doonaa waxaan dhisi doonaa hadduu ilaahay yiraahdo xarunta markaan dhisno in وحير وحن قاعدين دونا هذا أطفي زداني دورتان حبن كسر برلمان كأنه حفيظ له سيدا الدنيا برلمان هذا شغيان هذا مدني علي ومروه إن البرلمان الشرف له وحن كلام ربا لكن كني إن أنقص علينا سيد الدين إلهي نفريسه وأني هو جامعها واجبات كسكو أم بالله إلهي سبحانه وتعالى مركو رسولك سمام الكبرى وحويري فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واعف عنهم وشاورهم في الامر أنت مركان سوق وضوء أنت بدن واتقانين رسولك وحلو أمانين يعني أجل عسنان نحريس هذا نحريس إلهي كسيه أجل عسنان هذا دتك كل شقينا هدي عن لهين أو أضفضنا غليظ القلب قفك اللي في سنق قلب بعدك هذا عن لهين dadku waa ka kala cariiri lahaay baa yiri marka waxaan lagu la taliyay hadana washaawirhum fil amri ayiri lishur wixii waxay ahayn rasuulku waxa la faray inuu dadka kala shooro walaalayaal hadbaanada sharafta leh waxaan rabaa hadii aan gudoomiye doortaan dabeecad lifsanaan adiga kala artaan igala kulmaysin waa koow arrimaha dastuuriga ah oo dalku u baahan yahay wada tashi baan ka wada yeelan doonaa guddiyo xoog badan oo barnaamijka soo dhalaan dhiro ayaan dhisi doonaa hadii alle idno guddiga edeer garsoorka xuquuqda waajibaadka dastuurka dhan isku soo dubridaan diyaari doonaa go'aamada idanka si dhab u sheegteen oo been laga sheegaynin taridiina been kama sheegi doono haddaad boqolkiina boqol fadhiyaan salaaya haddii boqol konton fadhiyo lahaya ma idan dhahay idan koo fadhiyin been guddiga saa dastuur ma idan ku noqonayo waxaan sameeynaa idan haddaad rabtiin waa tabsanaysiin haddaad ka shakiysaan koo laba gudoomiye dad waxba dhamna ay leedihiin tirada ma dhama xaga leedihiin waa qodob heer hoosaad ogol yahay in baarlamaanka markaad shakiyso la tariyo sharafta baarlamaanka waxaan rabaa in heybidi uu lahaa sharafka baarlamaankeeni inay soo noqoto xeer waxaan gaarnay darada ugu dambeysay markii arrimihii qaladaadka aan sameynay dadkii rabitaankooda ka tambadiyay baarlamaanka u soo jeediyeen anagina jacdii weynay ku raacnay oo meeshii lagu fadeexoy xeer waxaan gaarnay xilbaan muxuu yahay in la yiraahdo waad ogtihiin ilaahay hadduu yiraahdo haddaad gudoomiyada hortaan xilbaan muxuu yahay idin ma dhahayo waa idin ka hibsan doonaa baarlamaan sharafad noqon doontaan haddii aan leeyahay golaha shacbiga waxay la mid yihiin ummadii Soomaaliyeed dhamaanteed inta la soo fadhiisay la mid yihiin sharaftii ummadda Soomaaliyeed dushiina saaran marka anagu sharaftaas sidino inaan waxyaalo qaarkood aan ku fududaano amba dhaqaale maartay jidka laga leehiyo amba maartay waxyaalo kale oo qaldaada amba rabitaan shakhsi aan ku lugno walaalayaal hadduu ilaahay doorataan waa iska ilaalin doonaa insha Allah waxaad ogaatiin baabuur waxa la yiri haddii jidka ka leehdo asigoo orday oo maartay duurka laamaga ka dego inuu gudoomo dadka ku dhamaado badan yahay dawlad haddii shaqada ka leehato inay burburtay dawladda ogaada hadduu ilaahay yiraahdo baarlamaankan hogaaminayo sharcigu ku dhaqmaya sharciga kama leehayna duurka jeex ma mari doono haddii aan leeyahay insha Allah بدل يالي مروين البعض الشرف له وحان مرلبات في أن شيء أو أن أسكن دليلك نبي يوسف إني أجعلني إلى خزائن الأرض إني حفيظ عليم وبويري وحير أني آمين وأنا هاي
dhaqaalahan waa aqaana boqorow haddaad wax dhiibaysa taas ii dhiib buu yidhi hadda waxaan idinka codsanayaa mar labaad baarlamaan maamulkiisana waa aqaanaa niisaman waa igu jirtaa qarannimadana waa jecelahay 25 sano u soo taagnaa in qaran Soomaaliya u dhismo waxaan idinka codsanayaa inaad codkiina iigu deegtaan si anaguna maadaama aan aqoontaas aan leeyahay waa yaran lahay niisaman igu jirto aan isleeyahay dalkan isbedel la taaban kara baarlamaanka hogaaminaysa keeni doona maadaama aan aaminsanahay codkiina inaad u siisaan waad ogtihiin waqti khatar lagu jira tijaabada wiligeena kuma jiri karno walaalayaal intaasaan ka codsanayaa waxaan rajaynayaa inaad i dooran doontiin si aan maaragtay si aan u noqono baarlamaan sharaf leh oo saas ah marka runtii warka waa ku dheeraday qofka ma ogtahay markuu wax rabo waxa laga yaabaa hadal isku toosanina taanu iska yiraahdo marka haddii waa iga galbiyiin raali iga ahaada waxaan ku soo gunaanadayaa haldageena wuxuu yahay baarlamaan xur ah rabitaanka shacabka ku shaqeynayo danta shacabka fulinayo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh